ninkan way ka qabtiis way ka weyn tahay difaacan oo kala meeli karo walaalkeeyo waxa uu furdaas ku celiyo hadda ninka taageerin wallahi cumadaas ma la haysan karo kolba arwarkiisa weyna kabtan soddon leewa assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh qartama qaahiyo mudan halka soo sugtaan si kasto maqalkiin soo gaaray halka ka daawanaysan waa channelka shacab sheekay waakin shacab sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada caawid kuga haya sawiro jacayl xambaarsan oo qabsada baraha bulshada kuwa ku saabsan shiqurushay shukulaatadiisa hadaba sababtu maxay tahay وهاجاك ساحب بالك كورنتانا مقالكم قروح بدون قد قالوا حاسس شرف لك أقعد سنة إن سبسكرايب صارت القناة كيسو لقل بعد مقالكم سيو جار الساحب بدل وهاجاك ساحب بالأرنج عيل بنك حلينا أبوان بالجها يا سيده هقول كليشو دي عدو معي هيسو أما اللي بيجهود كجوع حريري وهات كده فوشن بريني بجار هستي أدمي جمهور يدخسب وجوه اللوبة نبته وكهر أيوه حبلا هذا كل شيء جاه أنا حسان كوها يا كبها وينتاسي ناسها جن سيده هو طوران هراوس وتاجن دبناها جن هيف كبا قون هذا السن وياني الكائن هو دي كلو من كلامه هو السنين سن كجن هنانك قرشة حديد لوسي إن ده هنا قصوت تاجي حدنا عاشق بنايا سنياش هاف كده وعن هذا الدمين dhabanada hareeraha wajiga halac nuuraya tima garabka hoos aga dago sinaha habtay qortan habkii gari lahaa halac dhaafsiisan hab socodka laafiyaha gacmaha heega lagu dhaha hanaan quruxsan taa loo ka qabeelina waa gabay markii aan hambiye aan kaad qoray waa gabay inaan caashiq helin holiran leh haye hawshaas hadda waxay haysataa shiqurushay oo maanta baraha bulshada aad u qabsaday runtii oo markii aan arkay sawiradiisa oo ugu soo dhacday gabaygaasi runtii qiimaha badan oo dadku inta badan dadkii soo xigtay ilaadan waxa sameeyay aabihi caashiqa cilmi boodari inkastoo si fiican u qurxiyay oo riwaayada u jiray Cabdi Hiban Lambat inuu dhintaan rajeynaya hadii uu nool yahay ilaahay waxa leenahay noloshiisa haska sii wato ma dilayno laakiin hadii uu dhintaan Allah u naxariisto xogay waa taariikh ahaan ma ha inuu dhintay inuu leeyahay inkastoo aan gabaygaas quruxda badan oo isagu inta badan Soomaalida ka soo gaarsiiyay si fiican ugu sharax runtii maanta waxa qisal yaab la qabsatay baraha bulshada taasoo ku saabsan shiqurushay oo sawirkiisa isaga iyo dabcan aduu aroos buu galay laakiin muhiimadda hadalkan sawirka macnaha hadalhaynta dhaliyay waa sawirka ay muuqata halka ay kaga muuqda wax kale hadalhayn muusoo dhalinay shiiqa waxa lagu eedeeyay wixiisu inay jacayl laafeen وأجعل أنت جعل كذا صلابنا كلي ما ورجيني هذا بدون وأن جعل هينين مركز صورة السكر كانوا إسكابل أسيد ذكرى أن جعل كل عدونا مركا أدو وصور جعل كيس حنبارسن ورنتي أن سن بلغوس تكرين كان هدي أبوانين تأكل هايين قبل يجينا أنت بقدر تير الحياة هذا دتكو سببت هذا لا أنت وهايان ودبعا ما أنا بعد أن يرى الصورة سوق الشاء رج أضياء حتى سكاروسي وما بيسوق على صورة لكن هذا لا أنت أد وحسوين هذا لا أد وبلا صور كأون اليوم كنتي وحيتاي إن شغل سكور كريستيانو رونالدو كلا أتشبيه شوق من كريستيانو رونالدو استغفر الله لكن كريستيانو رونالدو معناه سكور كيسيو كلا أتشبيه وأن وحنا لقى قبل كريم بسيسبة arwarkiisa weyna kabtan soddon leewa saddex sano oo xariir ayu final imaad macnaha saddex sano oo xariir lagu ma qabsan macnaha sawirkii ugu quruxda badnaa ugu romantic sanaa baraha bulshada soo dhigay 2019 waxaan soo fasax waa la dul qaatay hadalhayn buu dhaliyay waa la aamusay 2020 hadana waa la joogay waxba sii socda hadana 2021 hadana wuxuu soo fasax marka shiiqa عياريس وادمع وحواي هذا كربا waxa ugu soo dhacday inba hada kor wuxuu yiri sheeka qaslayab la iga sheekay wuxuu dhahay neeho qof kasto oo wacdi wadaad ha u maleeyay ugu waqti marka shaqashayna ku fogaayna sheekana waa sharaf buu leeyahay laakiin hada kor ninkaas kasoo sheeyan soo xasuustay dadku inta badan markii culimada inkastoo culimada ayaga laftirkooda ay is dhaliilaan oo dhahaan sheekaas waxba ka qaldan laakiin ayagu cilmiga iskuuleey wax dhaliil kana laakiin waxa ka hadlayna wax koma hada kor ninba wuxuu ugu yiri wadaad kasto qof kasto ku wacdi wadaad ha u maleyn macnaha nin sabab maxay taa ku dhahay wuxuu dhahay inuu hadda koor waxa jirtay dhahay meel baadi ah ba ilmo yara wadaad baa dugsi u hin jiray wadaadkaas dugsigu u hin jiray ilmaha quraan buu dhigi jiray oo aduu ilmaha dugsiga meesha ka baran jiray ilmaha dugsiga imaanayaan quraan bay ka baran jireen marka
dugsi waxaa dhigi jirtay gabar yar oo macnaha markii ku dhalataba yaraanteeda ku dhalatay xoogaa dhigajignaan iyo gabar adigu xoogaa macnaha aan qalbigiisa saxda ahayn isaga dhalatay oo macnaha dhameystirneen qof dhameystirneen adduunka ku jira marka oo xaq ilaahay macnaha buris xaq ilaahay haysto gabadhii dugsiga macalinka wadaadka wuxuu dhawa leeyahay waa lagu reebaa macallin anu hadda qisada marka ka sheekeynayna macallin dhaxta ka xishoonaya adigu uu ka reebaa macnaha gabadhaha markuu uu fasaxo oo dugsiga ardada kala daayo wuxuu yiraahdaa gabadha cashirkii ku dhacday iska bax cashirkaas si fiican lagu celinaa si fiican loo carabkeedu kari laayahay Stefan laga arkaa meesha si leefa laga arkaa ma hayani sirit karbaan niyo adiga waa shab saaxiib guriga kaga guuraa marka wuxuu yiraahdaa gabadha carabkeedu kari waayay carabkeedu adag yahay cashirka ugu celinaya iska bax ardadu iska baxayaan waa iska arday waa iska taqaan hadana meel baadiyo joogta xilli adag wax baranaysa habeen hadana ay ardada inta badan baadiyo dugsiga aadaan inta baadiyo ku soo dhigata taqaana oo dab soo shidatay oo la soo kulantay xaaladaas adag markuu meesha ku celiyo sheekada soo koobaya ciyaaruhu dhamaca dhigaa macnaha waa fahmi kartay idinka ciyaaruhu dhamaca dhigaa gabadha sakin waxba fahmaynin hadhow kula soo daaya gabadhii oo dugsiga macaanta fahmi wadaha ayaan kadib isbuuc kadib markuu oo adiga hawshii u baahdo kale oo shala qabtay hadana waa qabtaa ciyaaruhu dhamaca dhigaa mar labaad waa soo dira gabadhii wuxuu dugsiga looxii ka bixi weyd ayaan markuu aduu gabadhii saas u ahay shaki badan aan galay dadka waalidiinta gabadha dhalay iyo dadka familka xiriirino macalinka muxuu gabadhaan waa iska masaakiin baa dadka ardada kale ma reebay muxuu gabadha ugu reebaa adoo shakigi jiro baaxa dhalatay dadku waa iska dad jaahiliin moogta xilligaas meel baadiyo iska taa qof jooga kama taxadirin taxadar masalan gabadhii uur yeelatay masaakiinta war waxa leeyahay gabadhan yaa uurey waa la yaab madaxa la qabsada war gabadha xogaa markuu hadli kartaa maxaa kugu dhacay xitaa calooshan weyn uurkan xabu ka yimi shakadii waxa qabsatay macnaha ay shanta bilood ku sheegin aan ku sheegi maayay gabadhii caloosha soo yeelatay iska gabar masaakiin waa gabar laga dulmayo waa gabar laga xaq daray waa gabar laga faa'iideystay macnaha iska waxa laga faa'iideystay dhameystir la'aanteed marka ninkii odaga ahay oo meesha dugsiga ku haystay wadaadka iska dhigay dabaalmihiisa asoo markii xaaladdan timid ismuusan xariif muusan noqon oo ismuusan xal si ninka sheekada iga sheekeyna waxay noqotay gabadhii in la soo ordo oo la yiraahdo xaq loo kala boodo la kala dido markii gabadha la xaq u dhac gabadhii waxay ka bixi weydaba seengel gabadhan galila maxaa ugu dhacay seengel ileed haga geeli baadi iska tagta moogta seengel ku warada gabadh seyntan geel jinna ayta alcamo markii dambe wadaadkii waa la ogaadaa la yiri xaaladii jiqay ku noqotay dadka familka markii ogaadeen heer waxa la gaaray in dhalintii gabadha la dhalatay dhalinyaro waxa la dhalatay geeleeyo iska baadiyaha la dhashay dhahay intii xanaaq dartiis qoryo soo qaataan oo shan qoryo soo qaataan shawilna soo baxan habeen isagoo ardadii cashir u akhrinay oo qaliyamay in habeen madow inta la baxo la kaxeeyo la geeyo meel balle ah oo Soomaalida iska taqaana markii baadiyaha joogto meel xayta baraakado ama balle tuulo adigu ay u soo arooraan dad kale maalinka ay imaadaan habeenkii la galabka laga kala carab meesha inta keeneen shan ku dhow ninka odaga bartay meedkiisa dhigay subax qof markuu meeshii yimid oo tuuladii yimid oo rabiye la dhaasado qof kasta markuu imaaday war nin meeyda yaalaba waa wadaadkii dhamaad dadka xaafadda waa la kala carar halkaas ku bax dadkii la toorinka xaq u jimay markaas waxay dhahaan leeyahay marka meesha diray cid kasto idin wacay wadaadaha u maleynina sidii meesha u dhigay aduu qisadii waa la ogaaday wadaadkiisa ku dhintay aduu waa la iska duugay si sheeko dhamaad marka cid kasto idin wacdida shaacir sheekay idin wacdi wadaadaha u maleynina marka cid kasto idin wacdi wadaadaha waa haysanayeen ka taxadar adilay aad ma santaa daawashada muuqaalka waa ka shaacir sheeko sidaayo muuqaalka bixisay